barnaamijka dhaqo oo dheefso oo si guud uga hirgalay deegaanka ayaa ahmiyadda ugu weynay ay ahayd sidii loo horumarin lahaa khayraadka xoolaha korna loogu qaadi lahaa faa'iidooyinka wax soo saarkooda. Haddaba dhalinyarada degmada Dooboweyn ee gobolka Qoraxay oo ka faa'iidaysanaya wacyigelinta iyo kor u qaadida khayraadka xoolaha nool iyagoona garab ka helaya maamulka degmada ayaa dhaqay 40 gaaguurood oo shinni ah kuwaasi oo loo dhaqayo hab casri ah. Cabdullaahi Macalin Aadan oo ah hormuudka dhalinyaradan ku shuraakowday ka qayb qaadashada horumarinta khayraadka xoolaha nool ee dhaqo oo dheefso ayaa sheegay inay dadaal dheer ugu jiraan sidii ay uga midho dhalin lahaayeen korna ugu qaadi lahaayeen wax soo saarka malabka maadaama malabku faa'iidooyin badan leeyahay. annagoo ka faa'iidaysanayna xukuumaddii barnaamijkeedii ahaa dhaqo oo dheefso waxaan bilownay barnaamijkan ganacsiga iyo dhaqashada ah shinnida waana barnaamij aad u wanaagsan inkastoo bilow nagu yahay ilaa hadda 40 sanduuq bay ku jirtaa. waxaa weeye waan bilownay inaan ka midho dhalinana insha Allah waan rajaynaynaa. iskaashataan dhalinyaradii degmada oo iskaashato samaysatay baa keentay ilaa 40 sanduuq bay hadda ku jirtaa. waxaan rajaynaynaa barnaamijkaas in lagu guuleysto oo ka midho dhalino. degmada Dooboweyn iyo maamulkeeda baa nagu baraarujiyay annaguna waan qaadanay haddana aad bay u shaqaynaysaa. malabku marka hore diintanada sheegtay inuu faa'iidadiisu ay macnaha 100% tahay. waxyaabo badan oo kale waxa ku jira ganacsiga ku jira oo malabku waa la gadanayaa. wax badan oo waxa ku jira faa'iido ah oo rabnaa hadii alla inaan ka mar dhalin maadaama aan bilownahay isma aanan gaadhin. marka ganacsiga iyo dawada iyo hadii alla ku rooyaan wax walbaba inaan 100% keeni doonaan hadii alla idmaan rajaynaynaa. marka barnaamijkaas uu noo hirgalay dhaqo oo dheefso ah waana sii badinaynaa baash ilaa 150 sanduuq baan rabnaa hadii alla idma guri inaan gaarsiino insha Allah. haddana waa inoo bilow beertaas hadda noo joogtaa beero badan inaan u sameynaa rabnaa hadii alla idmo. barnaamijku waa sidaa hadda dadkan waxaan ku baraarujinaynaa in barnaamijkan aad u qiimo badan yahay in la qayb qaato dadka baagamuudada iska fadhiya dadka aan macnaha in barnaamijkan galaan xag ganacsi xag dhaqasho dhan walba ah intuba waa faa'iidooyin badan ku leeyahay. xagga qalabka horta waa qalabkii casriga ah ee ugu dambeeyay caalamka laga isticmaalay. mishinu leeyahay lagu miirahayo malabka lagu miirahayo qalab kale oo la gashado oo baash la iska ilaaliyo waxa aad uga mahayno. marka hadee ama xag dawladeed xukuumadda ha noqoto ama xag kale ha noqotee aad baan u soo dhaweynayna cidii naga gacan siinayso.